igu dhaca wali waan hasidin waa la xiro ay ka arsanaysa haddii la xiro kaama arsanayo qalkana sii sheer gareeya una duceeya maama Safiya adigoo aan u duceyn maama Safiya muuqaalkaaga bixin maanta waxay kaaga baahan tahay duco aan u duceyna caruurteena qurbaha ku nool iyo meel walba ay joogaan fadlan caruurteena ilaalsada ayaan ugu talinaynaa maama waxaad adigu ii qortay ma waxaad iga celi kartayna ma adduunyada dadka jooga oo dhan baa wax ka halaabaan qof kasta wax ka halaabayaan ha sii cararin ha isdhihin dambi baad gashay ha isdhihin wax walba kugu dhaca laakiin adiga markay wax kugu dhacaan aniga isoo raadi adigu markii maama Safiya ayaa marar badan lagu xiray dalka Mareykanka markii ay dacweysay gabar ayada dhashay ee gaalada ay ku dacweysay ayaa xabsi la dhigay markaasi kadib waa la soo damiintay waxaana lagu sameeyay in lagu soo xiro bir in ay xor ee noqonin eena tagin meel gaar ah waxa kale oo aan xog ka haynaa sababta maalin walba loo xiro maama Safiya ayaan barnaamijkeena ku soo gudbinaynaa fadlan muuqaalka la gareey kanaalkan diyaad ku cusub tahay subscribe saar ee muuqaalkana sii sheer gareeya una duceeya maama Safiya adigoo aan u duceyn maama Safiya muuqaalkaaga bixin maanta waxay kaaga baahan tahay duco aan u duceyna caruurteena qurbaha ku nool iyo meel walba ay joogaan fadlan caruurteena ilaalsada ayaan idinku talinaynaa maama Safiya ayaa mar walba lagu xiraa dalka Mareykanka gaar ahaan Alaska sababaha keenay ayaa ah waxa dacweysay gabar ayada ay dhashay subhanallah gabar adiga aad dhashay ku dacweyso waa dhibaatada ay leedahay qurbaha gabadheedna ayaa ka ilmeysisay hoogadeeda markii ay ku dacweysay gaalada xabsi la dhigay markii la soo deeyay maama Safiya ayaa oohin afka furtay waxayna sheegtay in ay gabadheeda ilaa iyo hadda ay jeceshahay eena wax u arkeenay dacwada ay dacweysay gabadheeda waana hooyo Soomaaliyeed ee dhashay caruurteeda meel ay ugu tagta malaha caruur aad dhashay haddii ay rabaan ha xumaadaan meel aad ugu tagi kartid malaha caruur aad dhashay waana jirkaada oo kale waalidiinta waxaan kula talinaynaa inay caruurta ku dhiirigeliyaan in ay waalidkooda ay ka dambeeyaan markii ugu horeysay waa in caruurtaada aad dhaqanka u toostaa haddii markii intay yar yihiin aad dhaqanka u toosin waasay wax alaala waxay rabaan ay ka sameynayaan waxayna kugu dacweynayaan gaalada waxaa jira waalidiin aad u fara badan oo dhibaato culus ku qaba gaaladan oo mar walba iska xirayaan waalidiinta dhibaatada ku qaba caruurtooda ayaa waxay ku soo dacweynayaan gaalada haddii aad la hadasho caruurtaada xabsi ayaa lagu dhigay caruurtaada ma canaanan kartay haddii aad hadal dhibaya aad ku tiraado caruurtaada waxay kugu dacweynayaan booliiska ayaana caruurta halkaasi ku wadanayo waalidkiina waxaa la dhigayaa xabsi waa arin ama kaag iyo layaab iyo argagax leh waana dhibaatada uu leeyahay qurbaha ayaa waxaa laga dhaxlaa dhibaatooyin aad u fara badan qofka waa inuu gaaloobaa oo diintii islaamkii ka baxa qaarna ay noqdaan kaniiso qaar ay noqdaan caasi waalidiin oo waalidiintooda ku caasiya ayna ku dacweeya gaalada halkaasina waalidka lagu xiro waalidiin fara badan ayaa jiraan caruurtooda ka soo wata wadamada ay sharciga ka haystaan waxayna ka haystaan dalkooda hooyo iyo ama wadamada Afrika si ay caruurtooda dhaqanka ugu toosiyaan waxaa jira caruuro fara badan oo dalka dib ugu soo laabtay si dhaqankooda loo toosiyo caruurta intay yar yihiin haddii aad ku canaanan waasay aad dhaqankaada aad bari waasay waxay noqon doonaan caruur waxay rabaan iyo wax alaala waxay iska sameeyaan aan la garan karin hadhowdana waxay kugu baranayaan balwad waxaan aragnay caruur aad u fara badan oo bartay balwada kaniini isticmaalayo oo meelaha yaalo sida dalka Mareykanka Ingiriiska oo saaid ka ah caruurta Soomaaliyeed oo halkaasi aad ugu halaabayaan isticmaalayaan maandooriyaha waxaan arkaynaa caruur wata mindiyo isku dilayaan dalka Ingiriiska oo saaid ay ka tahay in caruurta isku dilaan mindiyo
waxaana jira gaangistara ayay leeyihiin caruurtani oona isku dilayaan mindiyo ayagoo gaangistara ah, waxayna halkaasi ku iibinayaan maandooriyaha oo aan laga ogoleen wadamada ay ku nool yihiin caruurtani. waxaan aragnay caruur aad u fara badan oo isku dilaan maandooriyahan, isku dilaan mindiyo. sanadkii 2020 ayaa dalka Ingiriiska saaid ka ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed oo isku dilaya mindiyo. dhalinyaradaasi ayaana iibiya waxyaabaha loo yaqaano drugska oo lacag fara badan ee ka sameeyaan. Soomaalidii haddii ay wadankooda ay ka carareen ee tageen wadan kale oo dhisan, waxay ku hayaan dhibaato aad u culus, waxayna wadankooda ugu tageen dhibaato. wadan kale oo dhisan ayay tagayaan nabadgelyo ah, waxaan la siinayaa shaqo, waxaan la siinayaa lacag ceer ah ee qaataan. laakiin kibirkooda waxay ku gaarayaan in ay lacagahaasi ay jirkooda ama nafsad ahaantooda isku dilaan, waxayna qalaasi gelinayaan dalka ay nabadgelyada ay ku haystaan. Soomaalida badankooda meel walba meel ay joogaan waxaa ku jira dad aad u dhaqan xun, aanan ahayn dad awaal loo gala, qof ku soo dhabeystay oo wax ku siiyay, shaqana ku siiyay, lacag ceer aan ku siiyay, adigoon shaqaysanan guriga iska fadhi ku yiri wax baro ayaa ku kibraysaa. waalidiinta Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay caruurtooda markii ay kooda xalqa qurbaha ku dhalagaan waa in markii ugu horeysa ay dhaqankooda ay baraan. birta inta ay kulushahay ayaa la toosin karaa, laakiin mar haddii ay qabowdo birta lama toosin karo. waxaan Allah subxaanahu wa tacaala aan ka baryaynaa in uu caruurteena noo soo hanuuniyo oo wadada toosan oo Allah ku toosiyo. fadlan u soo duceeya maama Safiya in Allah ka soo saaro gacanta cadowgaasi gaalada. maamadani ayaa marar badan lagu xiray dalka Mareykanka. fadlan u soo duceey, maanta ducada ayay u baahan tahay. fadlan muuqaalkana sii share gareeya, like saara si uu gaaro dad aad u fara badan. waxaan ka tagnaa sidaas iyo nabadgelyo barnaamij kale oo xiiso leh. wax walba adduunyada way dhacaan, laakiin adiga markay wax kugu dhacaan anigay soo raadi. adigu markii aad dhibaatooto anigay soo raadi. wax walba adduunyada way dhacaan, laakiin adiga markay wax kugu dhacaan anigay soo raadi. adigu markii aad dhibaatooto anigay soo raadi. wax walba adduunyada way dhacaan, laakiin adiga markay wax kugu dhacaan anigay soo raadi. adigu markii aad dhibaatooto anigay soo raadi. wax walba adduunyada way dhacaan, laakiin adiga markay wax kugu dhacaan anigay soo raadi. adigu markii aad dhibaatooto anigay soo raadi.